wali waxaynu ku jirnaa wararka wadankan Britain buug cusub oo looga hadlayo taariikh nololeedkii Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa lagu soo bandhigay dhawaan magaalada Leicester ee wadankan Britain wariyaheenna Cabdirasaaq Socoto ayaa warbixinta buugaasi iyo cidda qortay iyo waxa uu ku saabsan yahayba inoo soo koobaya halka aynu joogno waa magaalada Leicester ee dalkan Ingiriiska oo lagu soo bandhigay buug cusub oo laga qoray Allaha u naxariistay madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre buugaas oo looga hadlayay noloshii iyo waxqabadkii dawladdii iyo xisbigii hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariisto wuxuu ahaa nin aragti dheer buu ahaa nin wax sahmiya buu ahaa nin ummadda Soomaaliyeed meesha danta ugu jirto ka bini aadane xaqiiqdii ma oo Ilaahay baa og laakiin sahmin kara buu ahaa nin sahmiyuun ahaa barkaatu xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo ku nool dalkan Ingiriiska ka kala yimid gobollo kala gedisan oo ka mid yihiin magaalada caasimadda ee dalkan Ingiriiska ee London magaalada Leicester ayaa ah meesha ugu badan ee dadka ka soo qayb galay ay ka yimaadeen waxa sidoo kale halka ku sugnaa qoray buugaag badan oo ka hadlayay Soomaalida kuna qornaa af Soomaali sidoo kale waxa ka hadlay madax ka soo shaqeysay dawladdii uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre sanadadii uu ka talinayay qorista buugan ayaa ku soo aadaysa taariikho isla eg oo ah markii xukunka uu qabtay iyo markii uu ka tagay iyo laga soo bilaabo waqtigii uu ka tagay iyo waqtiga aynu joogno oo min 22 sanadood ah waxa weeyaan waa wax runtii aad iyo aad loo sugayo weeyaan waxaana runtii aad u wanaagsan in qof yani dhalinyarada Soomaaliyeed kamid ah uu yani qaatay go'aan in uu taariikhdii qarsooneed ee Maxamed Siyaad uu soo bandhigo marka Maxamed yani dardaaranka uu reebay keeyo marka dardaaranka uu reebay waxa weeye number 1 horta hore asagoo ninkaas ah buu isku dayay inuu ummadda Soomaaliyeed u soo cesho markaas wuxuu u soconay hadda ummadda Soomaaliyeed deena gashatay ma jiro wax soo barbaarisay jaamacadna kama soo saarin muciisna kama soo saarin asaga iskiis u kacdoon sameeyay marka iyo wuxuu gaaray inuu qoro kitaabkaas tafaraaran laga gudbayn oo tayo lahayn tarantiinu way badantii iyo tirada joogtay tuulo iyo degmiyo gobolba waa tacaajibaysay togri way ka xog badan yihiin tiri iyo ruushe hayeeshee tayiisa ka maqan waana tabaqdhoone sababta igu kaliftay buugan inaan iibsado runtii waa taariikh Soomaaliyeed oo aad iyo aad u weyn markaan maqlayn aanan aad ugu farxay aanan rabo in ilmahanaga iyo da'da yar oo ku qortay Yurub ay wax badan ka bartaan buugan oo ka hadlaya nolosha iyo waxqabadkii dawladdii Soomaaliya ee madaxda uu ka ahaa Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa qoray wiil dhalinyaro ah oo ku koray qurbaha Maxamed Ibrahim Shire waxaan ahaa qurbijoog ku faano markan ajnabiga la joogo inaan ahay Soomaali laakiin aqoon badan uma lahayn Soomaalinimada iyo dareenka wadanimo sanadkii markuu ahaa 2006 ba waxaan arkay oo akhriyay article ka sheekeynaya Soomaaliya xilliyadii dawladda kacaanka waxaan markaas ugu abuurmay han aad u weyn oo igu taxluujiyay inaan laba qodob suubiyo qodob koowaad inaan soo aruuriyo muqaale iyo qoraalo muujinaya dagaalka sokeeye ka hor qodobka labaad maxaa khalad ah oo dhacay oo keenay civil warkii iyo maxaa ka baran karnaa khaladkaas markaan taariikhdeena weyn dhexgalay waxaa igu soo noqnoqday hal magacaas oo Maxamed Siyaad Barre waxaan arkay in taariikhdiisa dhan lagu soo koobay dhowr line anigoo aqooni qofku waxa aan ka ahayn madaxweynihii wadanka xukumi jiray muddo dheer markaas kadib ayaa waxaan go'aansaday inaan raadiyo taariikhdiisa dhammaan intii ka soo qayb gashay aad iyo aad bay u mahadsan tahay ugu dambeyntii anigoo ah Cumar Xasan Maxamed Cumar Dheere soo saaraha buugan waxaan inkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka aad nagala qayb gasheen marti sharafta nooga timi London Birmingham
iyo Leicesterba aad iyo aad baa u mahadsantihiin buuggan oo ka kooban 314 bog ayaa lagu soo koobay taariikh nololeedkii madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre laga bilaabo sanadii 1969 ilaa waqtigii uu geeriyooday waxaana buuggan ay ku qoran yihiin waxyaabihii dhabta ahaa ay qabatay oo uu qabtay xisbigii uu madaxda ka ahaa ee xisbiga hantiwadaha kacaanka Soomaaliyeed Cabdirasaaq Socoto Universal TV magaalada Leicester UK